السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ardayda ku xiran channelka Sayda Academy waxay idin leenahay maalin wanaagsan qof walba waxaan leenahay maalintiin haydi wacnato maanta waxaan qaadan doonaa casharkeeni sagaalaad wuxuu ku saabsan yahay the man who had four wives wuxuu ku saabsan yahay ninkii afarta xaaslaha ahaa ama afarta xaas qabay. Once there was a man who had four wives. Mara waxaa jiray nin afar xaasla ah. They were all good women. Dhammaantood waxay ahaayeen naago fiican oo aad u wanaagsan ama hablo fiican oo aad u wanaagsan, but laakiin unfortunately nasiib daro they were jealous of each other. يعني waxay ahaayeen dad oo isku maseeraya ama qof kale ayuu ka maseeri jiray naagahaas ama afarta xaas, and were always quarreling. waxay mar walba waxay ahaayeen dad muran badan oo isqabqabsi badan oo isqalaafi jireen maadaama afar xaas oo hal meel isku keenay oo ogtihiin calqadaha ama waxyaalaha meesha ka iman kara. So marka one day maalmaha ka mid ah maalin to their husband one day come to their husband ninkii ayaa guriga yimid and said marka naagii ama said waxay yiraahdeen marka we would like to ask you waxaan jecelnahay inaan ku weydiino hal su'aal. naagii ayaa su'aal weydiinayay ninkii ay weydiinayaan waxay leeyihiin we would like to ask you one question waxaan jecelnahay inaan ku weydiino hal su'aal. ninkii wuxuu yiri yes okay haye what is it waa maxay marka su'aashaasi. waxay dhaheen marka ama qof kamid ah waxay leedahay marka who do you love most يعني who kuma do you love most aad u jeceshahay yani afartiina qofkeeba aad u jeceshahay marka su'aash macnaheeda marka the man ninkii marka had thought for a moment cabar ayuu fikiray and then said wuxuu yiri I will answer your question waan ka jawaabi doonaa su'aalihiina ama waan ka jawaabi doonaa su'aashiina. wuxuu leeyahay marka I will touch the one I love the best waxaan taaban doonaa qofta aan aad u jeclahay. I will touch the one I love the best waxaan taaban doonaa qofta aan aad u jeclahay. kadib wuxuu leeyahay marka close your eyes xira indhihiina marka yani wuxuu haystaa afarta naag ayuu haystaa wuxuu leeyahay close your eyes xira indhihiina and the woman closed their eyes hablihii dhammaantooda indhihii ayay wada xireen and then kadib maxaa dhacay marka the man touched wuxuu taabtay ninkii wuxuu taabtay all of them dhammaantooda afartii xaas ayuu taabtay. then said wuxuu yiri I touched waxaan taabtay the one I love most waxaan taabtay qofta aan aadka u jeclahay ayaan taabtay yani wuxuu ka wadaa afartii xaas ayuu wuxuu leeyahay waxaan taabtay qoftii aan aadka u jeclahay. wala fiiriyo marka casharka dhammaantoodna wuu taabtay laakiin ayagu wuxuu qalbigooda wuxuu gelinaya wuxuu leeyahay hal qof aan aad u jeclahay ayaan taabtay. so marka kadib maxaa dhici doonaa the four women opened their eyes afartii xaas indhihii ayay wada fureen marka and smiled at one another qof kale ay u dhool cadeeyay yani afartii naag markay indhihii fureen yani qof wada faasantahay waxay isleedahay qofka la taabtay adigu waa hebla waxay leedahay qofka la taabtay adigu weeye. so marka hablihii qof kale ay u dhool cadeeyay marka from that day maanta wixii ka dambeeyay there was no more jealous wax maseer ah and no more quarrels wax murna ma aysan jirin yani murankii meesha ayuu ku baxay. so marka waxay ku cadeynaysaa waxa weeye sheekadana inay macna gooni ay leedahay naagahana inta waxay aad u jecelyihiin ninka amaanaya ay aad u jecelyihiin. so marka ku celinaya cafwan ku celinaya hamra akhriya marka casharkii sagaalaad the man who had four wives. Once there was a man who had four wives. They were all good women, but unfortunately they were a choice of each other and were always quarreling. One day come to their husbands and said, we would like to ask you one question. Yes, what is it? Who do you love most? The man had thought for a moment and then said, I will answer your question. I will touch the one I love the best. Close your eyes. The woman closed their eyes, and then the man touched all of them. Then said, I touched the one I love most. The four women opened their eyes and smiled at one another. From that day, there was no more choice and no more quarrels. So marka casharkiina halkaas ayaan ku sameynaa
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.